Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal waa Bulimo Media aad uga barateen halkan idinka soo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida kuwooda ugu xiisaha roon ama ugu waaweyn. Taariikhdu waa 9 bishii shanaad 2020 waxaan idinka soo gudbinaynaa daawadayaal Soomaaliya oo xaaladda cudurka COVID-19 iyada ku sii fidaya ayaa dowladdu waxa ay muujisay dadaalo dheeri oo lagu xakameynayo cudurka iyagoo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay wacyigelin aad u ballaaran ka wadaan dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal Donald Trump ayaa waxaa mar ay weydiisay jariidada lagu magacaabo Fox News ay tiri dagaalka Vietnam in ka badan ayaa ku dhimatay COVID-19 maxaa xala waxa uu yiri mar haddii dhaqaalihii dalka uu shaqeynayo kan waa la xakameyn karaa ayuu yiri isagoo aad moodid inuu saaray diiradda dhaqaalaha waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal halkan waa goobta tareenada ee u ah xarunta magaalada New York iyadoo la yiri waa markii ugu horeysay muddo 115 sano waa in ka badan qarni iyo rubuc ma aan u cudloobin sidan oo kale iyadoo laga dareemayo inay gabi ahaanba haawanayaan tareenooyinkii aadka u mashquulka badnaa taasoo aanay dhicin ayaa la yiri 115 sano muddo laga joogo haatan. Coronavirus ayaa waxaad moodaa inuu aad ugu soo galiyay dunida oo dhami inay dadka guryahooda aanay ka bixin amaba aanay u soo bixin dibadaha taasoo muujinaysa dhibaatada ama saameynta uu u geysto coronavirus dalka Mareykanka iyadoo lagu qiyaasay in ka badan 70,000 in halkaas ku dhimatay. Waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal dalka isu taga Imaaraadka Carabta magaalada Sharjah ayaa waxaa bartamaha magaalada dab ku qabsaday dabaq aad u dheer dabaqaasoo lagu magacaabo Upcommon oo ka koobnaa 28 biyaan ayaa gabi ahaanba waxa uu saameeyay dabka isagoo aan la soo xaqiijin dhibaatada amaba khasaaraha uu geystay hase ahaatee dhammaan waa uu baabi'iyay dhismihii 28 dabaqa isagoo walow aan burburin balse aad moodid inuu dhammaan gudihii oo dhan ilaa dhankada sare uu uga baxay dabka kaasoo uu ahaa dab aad u awood badan sida idiin muuqato waa dabaqa Upcommon magaalada bartkiisa ku yaal isagoo gabi ahaanba shufbeelay kastoo aanay weli dowladda shaacin ama dhimasho ama khasaaraha halkaasi ka dhacay hase ahaatee waxaanu idinka soo sheegi doonaa dib wararkeena dambe ee aan kusoo qaadan doonaa waxa sababay dabkaasi iyo dhibaatooyinka uu geystay. Haddaba waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal iyadoo dunidu ay ku jirto la dagaalanka COVID-19 ama coronavirus sidii ay u xakameyn lahayn ama dadaalo badan ayaa dunidu waxa ay ku tartamayaan qolaba qalab inay soo saarto. Dalka Colombia ayaa waxa ay ku guuleysteen inay soo saaraan sariir iyadu ka samaysan kartoon taasoo qofka qaba coronavirus hadduusan badbaadin oo qofkaas ku geeriyoodo meesha lagu qaadayo kartoonka sariirta ah iyadoo aan waxba laga saarin biraha loo isticmaalayay in dhinacyada laga geliyo baa laga bixinaya kadibna qofka ayaa lagu daboolayaa taasana waxay u noqonaysaa qofkaasi in lagu aaso sidaad u jeedaan waa qalab fududeynaya in amaba xakameynaya faafidii coronavirus maadaama qofka qaba haddii sariirta uu ku dhinto intii ay geli lahayd howl amaba looga baqayay inuu fidiyo waxa iyadana arrintaas la mid sameeyay oo uu barbar socdo sida la dagaalanka COVID-19 ee dunida dhan ugu jirto dagaalkiisa ayaa Hindiyana waxa ay sameeyeen mid taasi ka agdhow iyadoo gabi ahaanba sariirtan ah mid ka samaysan kartoomo ayaa waxaa moodaa in ay wax ka qaban doonto ama ay ka bedeli doonto qaabka isbitaalladu ay u isticmaalayaan sariiraha tan waliba ay fududeyn doonto ayaa la leeyahay in la helo sariiro badan ama meelo badan oo bukaanka la seexiyo kuwaasoo ka samaysan kartoono macmil ah iyadoo aan loo baahan doonin in sariiraha caadiga ah isbitaalladu lahaayeen la isticmaalo baahida ayaa waxa ay dabooli doontaa baa la yiri waxyaabo badan oo muhiima. Daawadayaal waa Bulimo Media aad uga barateen inuu idiin soo gudbiyo wararkii warbixinada fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe like comment kala baqayna tan iyo kulanti dambe wanaagsan. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi.